oo hadda taariikhda Soomaaliya u bilowday in culimada Soomaaliyeed la asteeyo taariikhdoodii inta aan ogahay ilaa hadda waa isku daygii u horeeyay ee lagu sameeyay in la diiwaan geliyo taariikh nololeedkii sheekh kamida shuyuukhda inta aan ogahay oo gooni ah waxaan ogahay dad wax ka qoray taariikhda culimada Soomaaliyeed si guud uga hadlay laakiin in la macnaha si gooniya loo qoro qof kamida taariikhdiisii ayna la socdaan qoraaladiisii intii la hayay iyadoo ay tahay isku daygii koowaad oo macnaha Sheekh Cali Cabdiraxmaan laga sameeyay haddana waxaan ogsoonahay inay u baahan tahay dhamaystir fara badan inay u baahan tahay maadaama uu dabcadii koowaad yahay hawl badan oo dheer oo juhdi badan naga wada baahan dhamaantay qaybta Soomaaliga waxa soo akhriyay buugga wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waxyaabaha uu buugga qiimaha ku leeyahay waxa kamida buuggu waa laba buug oo isku dhex jira qayb waa Carabi qaybna waa qayb Soomaali ah arintaas waxa keenay waxa noo faahfaahin doona oo jawaab noo faahfaahin doona laakiin waxaad ogaataan waxay access u siinaysaa dad fara badan oo Carabiga wax ku akhriya inay akhriyaan taariikhda culimadaas marka Cabdiqaadir Cabdikhadir baan ku soo dhaweynayaa oo buugga soo indheeyay soo akhriyay inuu commentskiisii iyo يا خيارتي سوق تميد جودها وحق سلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحن ربع دور كلمين عن كيرا هذا بوجا لقى قوري حاجي علي عبد الرحمن فقه خيره أو فرنتي بوج وبوج سي عبد الرزاق الشيخ الله قيبة مكوبا قيبت عربي واحد سو أخري عبد الرزاق سغيرو الشيخ دونا أنا وحنا أخري قيبتها الصومالية شليبان بلابي ما أنت نواد ميجي وحن أوضل مري بوجا لو مثلا أوضل الدتيني بلينا نكبحيو أركتي مثلا ما هنسين نكبحيو حيالي بوجو كهلي وايو أرنتا تقول واحد سين سافرتان بالقفك عن بوج أرك أنا آخرين إن مثلا لقيت معلومات ير أو هادو مثلا يسوي بوجا كهلي كرو لكن لا تفيو بوجا رنتي وحا قري حفظه الله أو جاء عمر عيسى ورنتي بوجا المدو كو هولنا بوجان وحكى لي تاريخ دي حاجة علي عبد الرحمن فقه خيره وكسر بلابنتي كنت ضوء بقول سديتني تضبط إلى كنت سديت بقول كنتني اللبو وحال بوج ينوع عضينا يا مددي يريد أو شيخ النولا إني هاي لحد نشان سنة runtii inta uu maray iyo inta buugu maray iyo meelaha uu tagay iyo dadka uu la kulmay iyo juhdiga uu diintan galiyay iyo dacwada uu fidiyay runtii marka la fiirsho waa wax yar way 65 sano haddana laakiin waa khayr ba ku jiro in badan oo mataqaana يعني muddo badan lagu bari lahaa buu in yar ku koobay aw jaamac taga sheekeen meeno waa taqaanaan aw jaamac waxa lagu xasuustaa buuggii la oran jiray diiwaankii gabayay Sayyid Maxamed Abdullah Xasan waxa kale lagu xasuustaa qaranjabkii Soomaaliya labada buug waa akhriyay runtii labada buug waxa weeye qoladan gaalada markay noofalada qorayaan waxay ku qoraan amaano oo la raaciyo oo buuggaas talanba in la tasgiyeeyay waa buuggaas xaaji aw jaamac Umar Ciise waxyaalaha aad aan la yaab waxa kamida buugaagtiisa kamida yani haduu sheego ama tix sheego ama gabay sheego inuu raaciyo meesha ay arintan ka bilaabantay waxa keenay yani waxaad moodaa in halka ka shabaho quraanku marka ay waar taqaanaan marka la fasirayo sabab nuzul baa jira aayadaas ku timid isagoo halkaas kale ka maqaadi oo jaamac wuxuu keenay gabaygii uu soo qaato ama murtidii ama maansadii inuu raaciyo sababta keentay haddaba aan weydiino kumu aha xaaji Ali Cabdiraxmaan fiqi khayre oo laga qoray buugal kumu aha buugu wuxuu noo sheegay ninkaas ilaahay uu naxariistay xaajiga inuu ahaa nin taariikhda Soomaaliya baal dahab ka gali lahaa hadii wax la qori lahaa wuxuu ahaa nin daaciya oo diinta fidiya
وهو ننكب الشيء هرت نقال كنا برباري كبعدنا وكتر النقال مرق القرآن كدمية وهو هذه شيخ خليل أو دجنام قال لي هذا بيرة أو سنة لي الشيخ علي بوقال ليه لدونا شيخ علي عبد الرحمن شيخ يوسف عبد الرحمن الشيخ إنه جعل هاي وحيصير دونا عبد الرزاق وحن كتبه نكاسو كتبتي كبرتي مركو كتبتي هل كان تعالي لما يستي شيخ وحو سفر مكة يا مدينة مكة يا مدينة وحلقوا قياسي كراينو لحتنا تشوقي كبعد مكة يا مدينة مركو كردم حقا علم في عنك قاسي شيخ وحو قد بي مقالة لها بصرة ومركا يتالي آثار الإسلام كي كتبت الإسلام كي علم الإسلام كي ماشي منبع واحد أيوتري واحد بصرة هذا حقا جوغي شيخ وحو كسي تآذي مقالة كلا وليا كوفة وينوع علمي بدني علوم بدن كلا كل مي هذا كوفة كسر نقدين وحو مقالة يا بغداد ومركا ينا لفتي هاي حرونتا الإسلام كا بوقت هذا يكتبت هذه رجع حقوري جري أي مثلا كل هاين سلقة حاجه مركو انت مريي iyo waxyaalaha halka kala kulmay iyo kutubta halka ka soo bartay iyo sidii u fidiyay wax yar baa laga hayaa xaaji waxaan hore soo sheegnay wuxuu ku dhashay baalii magaalada gobolka Nugaal waxa la yiri markuu soo noqday Nugaal buu yimid hadii Nugaal yimid waxa la yiri diintii buu fidiyay waxyaalaha uu dadka kala hadli jiray waxa kamid ah baa la yiri salaada u badnaa isakada iyo dulmiga in la sameeyo waaga waxa la yiri waxa jiri jiray in dadka dadku ay soo dulmi jireen la kala xog badnaa oo حاجة وحال يري نين إلهي وحسية أفتهمه وحال نين جيسيا وها وحال يري أرنت دعوة وفيدنا يوكما فيدين كنا هذا الكلية وحكوسي فيدين كنا مانسو قويو شيفتو يجار أرنت با وحال يري مركي النقال ويجوغي حاجة نمانكي متقنا هايسي متقنا سلطنة ضمدك متقنا وضياشا وها وأنا رمين كتاب الإسلام حاجة وحالي وحو كلا كل ما يمتقنا دباسة بدن إنه متقنا مدبدا لها اللي مركي مقل وهين حاجة وحو عداسي إنا نشان تذكر إنا الشريعة ربنا إنا شو حكومة وحا قصوين كي كسب مرين نقال وحا كمي دبا ليري وبوغا نكو قران نين با وحا للشاقي إنه ويلو دالي قبر قوري نين كي وحا ليري ويل كي وحو كبحشي ودلي بقول هلاد يا بارقب بقول هلاد يا بارقب نكو بحشي gabadhii ninkii waa loo dhisay wiilkii reerkii oo dhisan maalmo waxa la wiilkii waxa uu timid Allah u timid waxa ku timid geeri degdega qoladii wiilku ka dhashay markii wiilkii la aasay waa la soo yimid xal maxaan sameeynaa meesha reerkii aynu dhisnay oo boqol halaad baarqab ku bixinay ninkii waa ka tagay ninkan wiilal kale ma loo gabadha dumaala maxaa la yeelaa odayaashu waxay ku tashadeen in odaygu dumaalo gabadhii arrintii xaaji cali ma jirteen baa loola yimid waxa la xaaji arrintaas ka waran arrintaas ma banaana wey shariicada islaamka ninka wiilka gabadhu ka dhinto kuma banaana xaaji saas ku yiri saasiya yiri wey wuxuu kitaab Allah saas yiri kitaab Allah waxay gama oga weeyeen ninka odaga